كوعا كوبدا عقد مانشستر يونايتد ريال مدريد ayaa ka xajoonaya ciyaaryahanka daafaca ee kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka wadanka Faransiiska ciyaaryahan Varane diga kooxda kubadda cagta Real Madrid baxsadka ee Varane ayaa la sheegaya in heshiiska shaqsiga la gaaray Manchester United sida ay qorayaan wargeysyada Express ee ka soo baxay Ingiriiska iyo wargeyska ka soo baxa magaalada Madrid Marca hadaba sida ay sheegayaan qayb ka mid ah saxaafadda Ingiriiska naadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa waxay doonaysaa in ay heshiiska uu ka qayb noqdo ciyaaryahanka baxsadka Man Utd ee Donny van de Beek hadaba sida ay sheegayaan xogihii ugu dambeeyay laga helay saxaafadda wadanka Ingiriiska ayaa sheegay in kooxda Real Madrid ay doonayso inay qaab amaah ku qaadato xidiga qadka dhexe Manchester United Donny van de Beek oo ku darto qodobkaas heshiiska Varane bishii April ayay ahayd markii wargeyska Sport Mail uu shaaca ka qaaday in Manchester United ay doonayso in Varane ay kala soo wareegto kooxda Real Madrid iyaga oo dhiirigelin ka helaya rabitaankiisa inuu ka baxo gegada Bernabeu in heshiiskiisa uu dhacayo sanadka dambe ee 2022 Varane ayaa haatan waxa uu haray kaliya hal sano Varane ayaa haatan u furan inuu ka xajoodo fursad uu kaga bixi karo garoonka Santiago Bernabeu kadib markii xulkiisa Faransiiska ay ka soo hareen koobkii Euro 2020 dhinaca kale Varane heshiiskiisa waxa ka qayb noqon kara Donny van de Beek iyadoo van de Beek xil ciyaareedkiisa koowaad kooxda United uu aad ugu dhibtooday Manchester United kadib markii uu heshiis 40 milyan oo gini ay kaga soo qaateen naadiga Ajax xagaagii hore Donny ayaana wax fursad badan ka helin tababar Ole Gunnar Solskjaer kaas oo inta badan ka horeysiinayay xidigaha Ray McTominay Pogba Bruno Fernandes iyo Nemanja Matic waxaana taas ay keentay in ciyaaryahankan uu door bido iskaga hiyamo gudada Old Trafford naadiga Maringueska ayaan u arkay xidigan inuu yahay xidig in badan ka soo muuqan kara kooxda kuwaad sida ay sheegayaan wargeysyada The Sun oo fadhigiisu yahay cariga Ingiriiska Los Blancos ay doonaysa in heshiiska Varane uu ka qayb noqdo qaab amaah waliba xidiga Donny van de Beek isla markaasna ay iibsadaan xil ciyaareedka dambe markuu heshiiskiisa amaahda ah kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa doonaysa inay iska iibiso ciyaaryahankeeda garabka midig kaga ciyaara Daniel James xidigaas oo markii horeba kaydka ahaa ayaa hadda loo maleynayaa inuu dib u sii dhaadhici doono maadaama kooxda ay la soo wareegtay ciyaaryahan Jadon Sancho xidiga Sancho ayaa noqon doona dooqa koowaad ee macalinka kooxda United maadaama heshiis qaali ah oo 73 milyan oo gini sterling kaga soo biray naadiga Borussia Dortmund ayaana waxay keeni doontaa in Mason Greenwood oo markii hore booskaas haystay uu noqdo xidiga kaydka ah ama isaga Cavani ay booskaas ku bedeli doonaan taas oo meesha ka sii saaraysa in ciyaaryahanka Daniel James uu helaa fursad uu kaga soo muuqdo kooxda koowaad dhinaca kale kooxda United ayaa la sheegayaa inay qaab amaah ku bixin karto ciyaaryahankan ama ay ka iibin doonto kooxaha Leeds United iyo Brighton oo si aad u doonayay xidigaas xulka qaranka Wales ku matalay koobka Euro-ga